sida qoraal loo turjumo habka qoraal loo turjumo iyo doorka ruuxa turjumaya ama turjumaaga ah door intee leeg mas'uuliin intee leeg baa saaran taasna waxaan ku soo dhaweynayaa noo kala dhigi doona insha Allah Kamal Marjaan sidoo kale isna 7 daqiiqo haystaa بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا دمانتين waxaan marka koowaad ka afeefanayaa kulliba waa iska waaya aragnimo wadaagun way tarjumaadu ay ka balaaranto waxaan daqiiqado kooban iyo minid laga hadli karo imika tusaalahan jaamacadaha afafka dhiga ee adduunka waxyaabaha ugu badan ee koorsooyinka ay xoog saaraan bay ka mid marka tusaalahan luqada carabiga wala adab ama english literature ama marka la dhiganayo marka waa iska guud mar waxaan wadaagaynaa tarjumad marka laga hadlayo laba eray ayaa marka maskaxda ku soo dhacayo muhiim ah mid waa af oo wixii la turjumayay ah afku waa aalad ayaa la yiraahdaa ka erayo waxaan leeyahay xarfo dhisa erayo si ay u sameeyaan tix ama tiraab waana biriishka amba xariga isku xidha bulshada markay macna sameeyaan ay isku xidhmaan luqad marka la yiraahdo waxa khasabon ka harin culture dhaqan oo waxa la yiraahdaa luqadda iyo culture-ka waxa u dhaxeeya miiq yar oo madow badan ku jiro yani in la kala saaraa oo la kala saaraa laakiin in la kala saaraa way adag tahay luqaddu waxay xambaarsan tahay dhaqankii sidaa awgeed in aad luqadda si dhiib ah u fahanto in aad dhaqankii luqadda aad ka imanayso iyo taad imanayso wax ka fahansan tahay wax fiican ayaa muhiim ah hadii kale madow baa galay waxa turjumayso erayga labaad ee asaasiga waa turjumaadda waxa weeyaan erayga aan isticmaalanay turjumaadda lafteeda inagu carabidan ka qaadanay translate salahan ingiriis laga yaabaa dhalinyaradu badan tahay translate marka nidhaahno trans waa erayga ingiriis aan garanay gudbinaha transit transportation transplantation ki kaliyaha amba organiska marka qofka laga bedelo qof kale la geliyo transferring transmission ki warlariska ee kamaradaha sitay sawirkeeda qaadaan ay meel kale ku tuurayeen marka halka waxa ka soo baxaya in wax la qaadayo oo leysna waa kaari qaadis amba xambaaris marka deebacnihi halkaas aba ka soo baxaya in wax la xambaarayo oo ito meel laga qaado xad kale laga la gudbayo oo meel kale la geynayo marka ay saa tahay markaas dhowr macne ayaa soo hoosgelaya oo dhamaantood hadii aanay u dhameystirmin tarjumaadda fahamka luminaya mid waxa weeyaan in erayadan uu qofku isku bedelayo isqaadashadooda la fahansan yahay ama uu fahansan yahay waa laba luqadood oo kala dhaqana laba in faham iyo macno uu gudbiyo waxaan soo baxaa marka uu qofkii akhriyo uu fahmi macno u sameeyo iyo laba qodob ah kuwa ugu adag oo ah qofka wax turjumaya in uu u dadaal galo in uu fahmo qof waliba markuu oo inaga mid markuu wax qorayo intention buu leeyahay hadana marka hore qalbigaaga iyo maskaxdaada wax ka dhex guuxay waxba ma qori kartid sida caadiga marka qofkan buugan aynu turjumayna ba article-kan aynu turjumayna qoray waxba maskaxdiisa ka dhex guuxay markan ilaahay baa og adigu ma ogid laakiin turjumaaga shaqada u taala waxa weeyaan inuu ka shaqeeyo inuu fahmo qofkan maxaa ka dhex guuxay si hadalkiisa uu macno u sameeyo qofkaas markuu erayga qorayay muxuu xagu u jeeday muxuu ka fikirayay iyo kalabaad oo qodobka labaad ee adag oo ah dhaqanka oo waxaan la soo turjumayo yani dhaqankii afkan aad tegayso muxuu macno ku yeelanayaa muxuu fahamkii ku yeelanayaa oo aan xagga dambe ka faahfaahin doono dabeecadaha amba sifooyinka ay turjumaadu leedahay waxa kale iyadana ka mid ah inay informative tahay oo wax macna sameynaya ay tahay iyo in qofka turjumaagi uu jilo qaab dhismeedkii qofkan uu wax ka soo turjumayo dadku waa kala wada qoraal marka macluum ma inaad qaab aad leedahay samaysato laakiin aad shisho waxa laga yaabaa marka buugaagta akhriyo saafka doonanaade qof hab suugaaneed buu qoraa iyadoo suugaan ahayn oo tiraab caadi ah haddana
dadka qaar waxay jecel yihiin erayo yar oo soo wada eeg erayo yar oo ismacnaynaya hadal wada eray ku soo afkoaya qofba si wax u qoraa inaad tisho qaabka uu qofkaas u waday in aad u wado si qofkii buuga kala soo akhriyay aanu buugaaga ugu ambande aanu soo mala waxba maqan wala kii kala ka macaan waxa la yiraahdaa tarjamada qofku marka aan buug akhrido hadii aad fahanto inuu qofku af kale ka yimi tarjamadaas kala daloolay leedahay yani markaan buug akhriyay hadii aanan hordhaca iyo jildiga magac kale ku soo arago aanan arag inuu qof kale qoray oon gudaha uu bilaabo qofkan akhristay afkiisa la keenay buuggan waa inaanu fahmin inuu buug kale ka yimi ama meel kale ka yimi dhaqankii haduu eego erayadii haduu eego fahamkii haduu eego hadii uu ku soo istaagto maskaxda bani'aadamku markaba qariib haday dareento waxa inuu qariib ku yahay su'aalaha ku abuurmaya fahamkii ba ka lumaya markaan taa ka imaado waxa iyadana yar dul istaagaya ta dhaqanka turjumaagu dhaqanka luqadda markaad baranayso kullayba khasab ah inaad dhex tagto laakiin haddii aad u akhriday dhaqankii ciddii lahayd wax badan baad ka fahmaysaa dhaqanka haddii aanad wax badan ka fahansanayn way adag tahay inaad fahamto culture-kii dabeecadii deegaankii cimiladii waxyaabaha tusaalaha u soo qaataan dadka tarjumada ka sheekeeya waxaa ka mid ah ninkii Shakespeare la odhan jiray ayaa abwaankii ingiriiska wala garanay ma filaya hal abuurkiisa waxaa ka mid ahaa erey uu leeyahay shall I compare thee to a summer's day gabadh buu markaa ammaanayay oo uu la hadlayay uu jecel yahay wuxuu yidhi ma ku barbar dhigaa ama ma kugu masaalaa maalin xagaa ingiriis buu joogaa dhaxan qorax ma arko waxaan maleeyahay cabdikariim filaakii baa garanaya Yurub ximiladeedii iyo ciddii kale ka timi baraf dhaxan cadceed oo intaas oo bilood iska maqnaata marka maalin xagaa inuu arko cadceedii taagan tahay waxay tahay nimco weyn oo intuu dharka la baxo xeebta tagayo soo kuleelsanayo markaad joogto inaga dhulkeena aba jasiiradda Carbeed joogto de maalin xagaa waad garanaysaa maalmaha ugu nacab tahay inaad guriga ka baxayninba marka waxay yiraahdaan haddii aad tiraahdo maalin xagaa aan kugu metelaya qofkii markii dib u istaagay xunayninkii waalay xaq wax wada marka laba midba waa la yiraahdaa waa in aad ka guurtaayo dhaqankaaga cimilada iyo waxa ku fiican u guurtaa oo neecawdii iyo saxasaxawd goon badan iyo roobkii iyo gudgudihii iyo aad ka sheekaysaa deetana hoosta ku qabataa sharaxii oo tiraahdaa abwaanku saasuu isticmaalay oo sideenan u dhiganta haddii galatiisa intood u sarreysiiso aad hoosta sharaxii ku qabato oo tiraahdaa dhaqankiisa kalifay inuu erayga qaato haddii kale qofku marka yani waxa uu soo qaatay tusaale in ay dhaqankii muhiimadda u leeyahay markasta oo qofkan wax loo turjumayaa deegaankii oo inaad wax ka fahansan tahay tusaalaha dhika masaariga buugiisa aad akhriyaysaa hadduu soo hadal qaado hebel waa saciidi saciid waa gobol dhan oo yaman ka mid ah waxaan leeyahay masar ka mid ah haddii ciddii garanaysa waa garanaysaa saciidigaasi deegaankaasu degaa oo qura macnaheedu maaha haddaad tidhaahdo waa nin ka soo jeegay deegaankaas macno badan baad luminaysaa mararka qaarkood tusaale ahaan innaga haddii lagu yidhaahdo hebel waa reer burco waa reer mudug waa reer jigjiga waa maakhiri mid walba macno inoo xambaarsan tahay marka haddii aanad fahamsanayn deegaankan uu qofkan ku hadlayo waa inaad isweydiisaa sababmu qofkan deegaankiisa u sheegay miyuu ku barayay mise hadalka kontakiisa ku dhex jirtay haddaanay barasho ahayn oo ninkaas waa nin halkaasoo gobolka u dhashay ku odhan oo isagoo hadalkii wada uu kuudhe hebel waa reer burco waxaas u sameeyey ama waa reer jigjigo waxaas u sameeyey ama waa reer ceerigaa waxaas u sameeyey waa inaad fahantaa dhaqanka ceerigaaba ka jira muxuu u qarinayaa qofkan markaasaad markaa macno samayn karaa haddii kale waa uu lumaya macnihii markaa taasna waa kaas waxaa iyaduna muhiim ah naxwaha inuu qofku fahansan yahay oo naxwihii labada afba tusaale ahaan haddii lagu yidhaahdo Ali came late Ali goortan buu yimi oo kale tusaale amba jaa Ali mutaakhiran waxaa laga yaabaa markan aad Ali Englishka ka hadlaysay noun kiibaad u horeysay calaya amba subject-giya markan aad Carabiga ka hadlaysay ficilkii baad u horeysay jaa oo imaashihiya Soomaaliga waxa laga yaabaa iska tiraahdo Ali uu taahay oo context-kiiba sidii ay dadka ugu fahmi soo rarto marka taasna waa arrin kale oo iyadana muhiima waxa kale oo muhiim ah qofku luqadan uu soo turjumayo inuu aqoon u leeyahay waayo luqadani isbedbedel badan bay leedahay hal tusaale aan siinayaa waqtiga soo gaaban China wadalan wada naqaano kelmadda China haddii ay capital ku bilaabanto iyo haddii small letter ku bilaabanto kala macno ay samaysaa
iyadoo loo eegaya halkay ku taalo China waxa la dhahaa saxanka caadiga ee eeriga ama dhoobada ka samaysan marka isagoo weel lagaga sheekeynay hadda tirahdo waa China sameeyay aad u fahanto de macnaheedu waad lumisay marka inaad fahansan tahay isbedbedelka luqadan aad ka imanayso iyo tan aad imanayso ku dhacaya waa muhiim waxa iyadana muhiim go'aan qaadashada oo qofka wax turjumaya markasta go'aan buu qaadanaya boqolaal eray hor yaalu mid ku calooladay marka qalad iyo sax baa ka soo bixi karaan laakiin feejignaan badan ayay u baahan tahay waxaan u maleynayaa waqtigu waa dhacay waa maasiti